السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتين قيمة هي قاية بدن دمانتين وان إذن وذ السلامية حدي أدكو عصب تهي كنال كينا فضلا سبسكرايب له سونا دوادا دمانتين موضوع عن فيديو أنا وحد لنا وحا وكساب سيني هاي لعقت مشارحان تأي أقاتان مدحدا الدونكا قار أهان قار كميد كودا وسرسرية labadina markii laga eego way wacan tahay dadka madaxda ah inay mushaar qaataan sababtoo ah koow waa dad shaqaale ah dalkoodana u adeegaya labo lacagta mushaarka ah ee qofka madaxda ah la siinayo waxay ka hortagaysaa qofkaasi madaxda ah inuusan dan ka dayin xatooyo iyo laaluush qaadasho inkastoo ay dhinaca kalena buuxaan kuwa wax walba ay qaataan wali shacabkooda iyo dalalkooda xadaya intaasi aan horudhacaas yar uga gudbo mowduucana aan horay u galo mowduucayna kuma saabsano gabi ahaan lacagaha madaxda aan xusi doono loo ogol yahay iyo waxa ku baxa dhan balse wuxuu quseeyaa lacagaha mushaar ahaanta loogu talagalay inay madaxdaasi qaataan kow Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka sida aad la socotaan Trump waa hantiile oo hantidiisa ayaa waxay xilligan gaaraysaa 2.1 bilyan oo dollar I'm really rich. balse ayadoo ay sidaasi tahay ayaa waxaa loo qoondeeyay inuu 400,000 oo dollar sanadkii mushaar ahaan oo kaliya u qaato bishiina waxay noqonaysaa lacag gaaraysa 33,333 dollar iyo 33 senti Angela Merkel hogaamiyaha dalka Jarmalka Merkel waxay dalka Jarmalka hogaaminaysaa 2005 ilaa iyo hadda waxaa la doortay 4 mar oo teeramkeedan hadda oo keedii ugu dambeeyay ahna wuxuu uga eg yahay September 2021 Merkel waxay mushaar ahaan u qaadataa sanadkii lacag gaaraysa 350,000 oo euro oo u dhiganta xilligan 380,624 dollar bishiina wuxuu mushaarkeeda gaarayaa 29,166 euro iyo 67 senti oo u dhiganta 31,000 oo dollar 718 caadi ahaan dalka Jarmalka waa dalka afraad ee dunida ugu dhaqaalaha badan marka dhanka wax soo saarka laga eego Mes chers compatriotes, 3 Emmanuel Macron madaxweynaha dalka Faransiiska Macron wuxuu mushaar ahaan u qaataa sanadkii lacag gaaraysa 181,680 euro dollar ahaana xilligan u dhiganta 197,576 dollar bishiina 15,140 euro u dhiganta dollar ahaana 16,464 dollar ayuu bishii qaataa Mark Rutte ra'iisul wasaaraha dalka Holland wuxuu mushaar ahaan sanadkii u qaataa 170,910 euro oo dollar ahaana u dhiganta 185,864 dollar bishiina wuxuu qaataa lacag gaaraysa 14,242 euro iyo 50 senti taasoo u dhiganta 15,488 dollar 5 Abe Shinzo ra'iisul wasaaraha dalka Japan wuxuu mushaar ahaan sanadkii u qaataa 202,700 oo dollar bishiina waxay noqonaysaa lacag gaaraysa 16,891 dollar dhanka kale markii laga eego Japan waa dalka saddexaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan markii dhanka wax soo saarka laga eego waxaa ka horeeyo Mareykanka iyo dalka Shiinaha oo kaliya 6 Justin Trudeau ra'iisul wasaaraha dalka Canada wuxuu mushaar ahaan sanadkii u qaataa lacag 267,041 dollar gaarayso taasoo bishiina u dhiganta 21,753 dollar Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha dalka Turkiga wuxuu mushaar ahaan sanadkii u qaataa lacag gaaraysa 102,136 dollar oo bishiina 8,511 dollar u dhiganta 8 Vladimir Putin madaxweynaha dalka Ruushka wuxuu sanadkii mushaar ahaan u qaataa lacag gaaraysa 116,176 dollar bishiina u dhiganta 9,681 dollar I wanted to have a 9
Lee Hsien Loong, ra'iisul wasaaraha dalka Singapore, wuxuu mushaar ahaan sanadkii u qaataa lacag 1.6 milyan oo dollar gaarayso, bishiina $134,165 gaaraysa. Ra'iisul wasaaraha dalka Singapore-na waa qof madaxweyne ah kan ugu mushaarka badan caalamka. 10. Sheekh Hasina, ra'iisul wasaaraha dalka Bangladesh, waxay sanadkii mushaar ahaan u qaadataa $359 waa sanadkii dhan, bishiina waa $113.25. 11. Xi Jinping, madaxweynaha dalka Shiinaha, wuxuu mushaar ahaan sanadkii u qaataa lacag $22,000 gaaraysa, bishiina $1,833. Wadanka Shiinaha waa dalka labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan markii wax soo saarka laga hadlayo, waxaa ka dhaqaalo badan dalka Mareykanka oo kaliya. 12. Moon Jae-in, madaxweynaha dalka Koonfur Korea, wuxuu sanadkii mushaar ahaan u qaataa lacag gaaraysa $211,320 oo bishiina u dhiganta $17,610. 13. Andrzej Duda, madaxweynaha dalka Poland, wuxuu mushaar ahaan sanadkii u qaataa lacag gaaraysa $58,147, bishiina waxay u dhigantaa $4,845. 14. Alexander Van der Bellen, madaxweynaha dalka Austria, wuxuu mushaar ahaan sanadkii u qaataa lacag €343,225 gaaraysa oo dollar ahaanna u dhiganta $373,257, bishiina mushaarkiisu waa $31,104. 15. Zuzana Kabutova, madaxweynaha dalka Slovakia, waxay sanadkii mushaar ahaan u qaadataa lacag gaaraysa €115,200 taasoo dollar ahaanna u dhiganta $125,279, bishiina waxay qaadataa $10,440 lacag mushaar ahaan gaaraysa. 16. Cyril Ramaphosa, madaxweynaha dalka Koonfur Afrika, wuxuu sanadkii mushaar ahaan u qaataa lacag gaaraysa $164,751, bishiina waa lacag $13,729 gaaraysa. 17. Sauli Niinisto, madaxweynaha dalka Finland, wuxuu sanadkii qaataa lacag €126,000 gaaraysa, dollar ahaanna hadda xilligan u dhiganta $137,024, bishiina waxay noqonaysaa $11,418. Tante storie spezzate, affetti strappati, spesso all'improvviso. 18. Sergio Mattarella, madaxweynaha dalka Talyaaniga, wuxuu sanadkii mushaar ahaan u qaataa lacag gaarayso €239,000 oo dollar ahaanna u dhiganta $299,911, bishiina $19,993 u dhiganta. micnaha mushaar ahaan madaxweynahaas sanadkii 12 bilood looma xisaabinayo ee 13 bil oo mushaar ah ayaa sanadkii loo xisaabinayaa. 19. Paul Biya, madaxweynaha dalka Cameroon, wuxuu sanadkii mushaar ahaan u qaataa $610,000 lacag gaaraysa, bishiina $50,833, wuxuuna ka mushaar badan yahay madaxda aan kor ku soo xusay qaar badan oo ka mid ah. Indeed, as you said in your own opening remarks, you've seen how the world has changed over the last. 20. Uhuru Kenyatta, madaxweynaha dalka Kenya, wuxuu sanadkii helaa mushaar qiimihiisu gaarayo $132,000, bishiina $11,000. intaas ayaan kusoo koobayaa hadaladeydan korana. waxaan kasoo kala xigtay dhowr website oo magacyadooda videoga dhammaadkiisa aad ka arki doontaan. sidoo kale fiiro gaar ah, waxaa jira website-yada aan kasoo kala xigtay maahee kuwa kale oo xisaabo yaryar oo ka duwan qori kara, marka taasina la soco. ugu dambeynna su'aal: imise ayaad isleedihiin madaxda Soomaaliya
ka bilow madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda maamulada goboladaba way qaataan. Imisa ayaadna isleedihiin mushaar ahaan uu u qaataa wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya? Jawaabihiina iyo fikradihiina commenti ahaan noogu reeba. Sidoo kale kanaalka haddii aad ku cusub tahayna subscribe dheh. Waa Axmed Kediye oo khayr badan idiin rajaynaya. Ciao.